wuxuu ahaa weerarkii ugu xoogga weynaa ee argagixiso ee lagu soo qaado ciidda Mareykanka sida ay dawladda Mareykanku sheegtay. dad badan oo ka mid ah dadweynaha Mareykanka ayaa maalinta mooday in dalkoodii dunida ugu xoogga weynaa dal kale dibadda ka soo weeraray. weeraradii 11 Sebtembar sanadkii 2001 lagu qaaday Mareykanka ayaa bedelay guud ahaan dunida oo dhan. dad ku dhow 3,000 oo qof ayaa naftoodii ku waayay halka ay 6,000 oo kalena ku dhaawacmeen. An airplane is reportedly has crashed into the World Trade Center. That is a live shot. 17 minutes after the first plane hit the World Trade Center's North Tower, a second plane hit the South Tower. afar diyaaradaha rakaabka ah oo ay kala lahaayeen sharikadaha United Airlines iyo American Airlines kuwaas oo ka kacay waqooyi bari Mareykanka ayay afduubeen 19 afduube. duulimaadyadii kala ahaa American Airlines 11 iyo United Airlines 175 ayaa duqeeyay saraha dhaadheer ee waqooyi iyo koonfur ku kala yaala xarunta ganacsiga adduunka. telefishinada dunida ayaa si toos ah looga arkayay saraha dhaadheer oo qiiqaya dabadeed dumaya. Mareykanka ayaa weeraradan ku eedeeyay kooxda Al-Qaacida isagoo bilaabay weeraro uu ugu yeedhay argagixiso la dagaalan. dagaalada argagixisada ka dhanka ah ayaa sababay geerida dad badan oo aan waxba galabsan iyo burburka dalal dhisnaa kuwaas oo Mareykanku ku eedeeyay inay gacan siin jireen kooxda Al-Qaacida. 20 sano kadib waxa dadweynaha Mareykanku ay iskugu yimaadeen sidii ay u xusi lahaayeen ku dhawaad 3,000 oo qof oo ay ku waayeen weeraradii Sebtembar 11 sanadkii 2001. xuska maanta oo Sabti ah abaara 8:46 oo u dhiganta 12:46 GMT markaasoo ahayd dhab ahaan markii labada diyaaradood ay ku dhaceen xarumihii ganacsiga Mareykanka ayaa daqiiqado aamusnaana goobta laga dhigay. munaasabadda xuska oo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynayaal hore ayaa iska noqotay mid caadi ah, balse sanadkani waxa ay kaga duwaneyd kadib markii ciidamada Mareykanku ay ka soo laabteen Afghanistan halkaas oo ay ku sugnaayeen muddo 20 sano ah iyagoo sheegay inay dagaal kula jiraan waxay ugu yeedheen argagixisada. kadib weeraradii bishii Sebtembar goobta Ground Zero ayaa laga akhriyay magacyada dadkii ku dhintay weeraradii Mareykanka lagu qaaday iyadoo faamiliyada dadka dhintayna ay ubaxyo dhigeen goobta. Axmed Maxamuud Yuusuf, Television Kasaab.